Have you heard of the iconic African model who inspired Gianni Versace, Terry Mugler, and Yves Saint Laurent? Today we're talking about Somali-American actress, businesswoman, and supermodel Iman. Iman was born Zara Mohammed Abdul Majid in Mogadishu, Somalia, and spent her younger years in Egypt and Kenya, where she was then discovered by a photographer. Her first model assignment was for Vogue. During her time as a runway model, Iman inspired some of the biggest names in fashion, including Donna Karan, Calvin Klein, and Marsha. In 1994, she started Iman Cosmetics, a makeup line dedicated to darker skin women who could not find their shades anywhere else. The model also happened to be married to British pop icon David Bowie for 24 years before his passing in 2006. Another African woman showing us just how excellent we truly are. Follow OK Africa everything. oo qof u baahan yahay waxay leedahay meel baarar ah oo laga cabo shaaha waxay leedahay hoolal waaweyn oo caalami ah halkan waa very interesting qofku inuu soo aado oo jawigiisa meeshan uu ku qaato runtii waa very interesting bulsho kala duwan goobo lagu ciyaaro waxay leedahay goobo lagu qaxweeyo waxay leedahay goobo oo family meetings bay leedahay waa achieve runtii very interesting waa meel oo adiyaabaysid qaabka uu uga socdo ganacsiyaasha runtii meeshaan ma malayn kartid waa very interesting meel aad u xiiso badan almost waa meel aad iyo aad ku soo dhaweynaysa runtii waan ka helay aniga meeshaan haddee markaad Nairobi timaadid haddaadan meeshaan arag imagine waxay la mid tahay you haven't seen the beauty of the city you haven't seen very interesting meel amada arag marka wakaas